عادة كنت أنا يعني عادة waxa dhacaya ma aha daando xabad waaye qori noociisa dabajeex iyo eekay wuxuu yahay la ka seenin ay dhinacyada isku adeegsanayaan waxa la sheegay meeshan la isku haysto inay tahay argada daynile dhanka kuliyada waxa dagaalka uu ka bilowday si rasmi ah uma cada laakiin goobjoogayaal ayaa isku raacsan in dagaalka uu ka bilowday ama taagtaaga uu ka dhashay ay tahay nin ciidanka military ka tirsan oo gacan qaad lagu sameeyay kadibna gurmud wacday iyo ciidan sida la sheegay ilaa iyo hadda walow saraakiish aysan wali cadeynin inay yihiin ciidanka Khalid bin Walid la yiraahdo oo aaga qayb kamid ah ay joogeen ay isku dhacaasi uu ka dhax abuurmay kadibna meeshii wada hadal wax lagu dhameyn lahaa xaaladdu ay tagtay in dambil la isweydaarsado tay oo la qaraaraatay oo ilaa iyo haddana dhacaysa xabadaha qaar oo wiifta ah ayaa guryaha dad shacaba galay ilaahayse wax kuma yeelin aaga haddii ay kuu suuragali weysay oo magaaladina aad joogtid kaamiradeena wax aan u suuragelin ma laha halka la isku haysto waa halkan aagaas aad arkaysid oo ciidamadaas ay tuban yihiin waa halka hadda uu dagaalka ka socdo dad shacaba waa ay joogaan waana xilliga aad fahmi kartid 9 saac ay u tahay xilliga muuqaalka aan duuba markaan ka hadlayo hadda dabcan daqiiqaday dhaafi kartaa waa xilligii dadka inta badan ay soo hooyaadaan ama kii shaqo aaday ama kii raba inuu gurigiisa iska tago oo uu magaalada iyo taagtaageeda gaalnimo u gooyo oo fiidkii raba inuu soo baxo xilligan oo kale dad badan ayaa jidka isticmaala gaadiida mara nasiib darase dagaal ayaa ka socda iyo xabado saa'id u dhacaya ilaahayse dadka ha ku badbaadiyo dadka shacabku waxay sheegeen ciidan kale oo dheeraad ah oo kuwa dowladda inay yimaadeen welina maaran loo leeyahay in xal loo helo xabadaha ay isweydaarsanayaan ciidankan oo difaac adag ku kala jira saraakiisha laamaha amniga qaar badan oo kamid ah oo aan la xiriirnay waxay sheegeen inaysan wax faahfaahin haba yaraatay ka bixin karin waxa hadda dhacaya sababtoo ahna ay sheegeen inay ku maqan yihiin ama ku mashquulsan yihiin in arrinta xal loo helo ciidan kuwa dowladda ah oo amniga magaalada in la sumcad xumeeyo diidan marka laga soo tago ciidanka dhexdooda isxabadeynaya ayaa hadda aaga loo diray weliba kuwaas waxa ay yihiin booliis tiro badan oo bal isku dayayo inay xaaladda dejiyaan waxaase la ogeyn sida ay ugu suuragali karto dhinacyo qoryo isku haysta xabadahana isku tuuraya in ciidan kale ay xaliyaan haddaanay ayaguba dabka basiin kusii qabanin nin qori wata nin kaloo qori wata ma xali karaa waa su-aal dad badan ay isweydiinayaan aagana hadda dadka degan waxay sheegeen in guryaha xitaa wiiftooyin ay ugu soo gashay jiingadaha oo badan xaggaas xabadkay dhulka ku hayaan magaalada in la sumcad xumeeyo wax fiican ma ah ciidanka hubkaas ama xabadahaas ay tuurayaanna waxaa uga baahan wiilasheena Soomaaliyeed ee difaaca ku jira waxaana mudan dhimbirahaas inay ku dhacaan dusha ama jirka kooxda ka soo horjeeda dowladnimada ee shabaab wixii ka soo kordha warkan waxyeelada uu geysto dagaalkan socda iyo sida xalkiisa lagu gaaraba hadduu ilaahay ka raali noqdo waa idin la soo wadaagi doonaa ogtahay in dhakhtar Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka faafahinta dheeri kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqanaya